كشكة صوها ميانو هين Welcome back ladies and gentlemen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada waa Shakuur bin Rashid iyo video cusub. Today waxaynu ka hadlaynaa maanta waxaan ka hadli doonaa diyaaradda loo yaqaano ama aircraftka DJI Mini 2 in yaro biro loo ku saabsan bal waxaan ka hadlayaa adil yar fahantaan bal in yar eega. Welcome back ladies and gentlemen. Diyaaradan aan idin sheegay ama drone-tan DJI Mini 2 baa la yiraahdaa. Video kala daawanayay sanadkii hore akhritankiisa ma yara duubay. Marka ilaa imika 3 bilood ayaan hayaa oo aan muxuu ahaa isticmaalayay. Marka iyadoo ay soo baxday ilaa meelaha November ana waxaan oon garay meelaha October. adigu bil iyo badama bil ka bacdi ayay markaa soo baxdeen oo gareeyay. Marka specifically waxaan ka hadli doonaa waliba fly more combo-ga. Yani inaad gaar u iibsato iyo inaad combo iibsato way kala duwan yihiin. Marka يعني كان waxa weeyaan kartoonkan aan imkaan ku hayaa waxa weeyaan fly more combo accessories bilaa saa'ida yani bal waxaan isla eegi doonaa marka waxyaabaha ku jira intay leeg tahay waxay qabato iyo yani waxyaabaha ku dhex jira accessorieska marka soo iibsato fly more combos in yaro comparison oo la barbar dhigi doono minute 1kii isoo soo baxay meelaha sanad ka hor meelaha ilaa 2020kii bilowgiisii February ilaa iyo meelaha soo baxay April meelaha aan jeclahay marka tan this bad boy ayaan kan midii isticmaalay fiyoga iyo shaqooyin kale oo client sameeyay waan ugu shaqeeyay marka waxa weeyaan yani diyaaradaha kale way ka duwan tahay for specifically for me iyo cidii ka rabtaba in drone photography ka bilowdo ama videography ga aircraft ka cidii u baahan fiilka soo gasho waan ku hayaa jawaabta so marka hadii isweydiinaysan maxaan drone iibsada yani teebay ugu haboon we talking about one ka doona taas marka balan isla eegno waxyaabaha ku jira marka koobaad unboxing aynu sameeyno let's go well maxay koobaad waxa ku jirta shandadaas markaad kartoonka furto ayaad shandada arki doontaa baagayar quruxda badan ee texture-keedu xitaa fiican yahay ma مثل اليوتي marka koobaad baan furno waxa ku jirnaa in eegno well what we got here horta sida kartoonka imika ka muuqda hadaan ku soo noqono halka waxa weeyaan preparaliski waxa weeyaan laba beer iyo kuwa ku dhigsan yani marka saddex yani marwaxadood ayaad heli doontaa waxaad heli doontaa controller ka heli doontaa sidoo kale waxaad heli doontaa power bankigi oo 3 battery qaadiyaad heli doontaa sidoo kale waxaad ka heli doontaa halkan xarkiiba ku jiro isleegi doonay marka 3 cable oo loogu tala galay inaad ku isticmaasho controllerka iyo telefoonka marka la isku xiriiriyo kuwaas oo Samsung geed heli doonto laba nooca mid USB-C iyo mid mini USB-giya iyo sidoo waxaad heli doontaa kale mid iPhone-ka loogu tala galay iOS-ka intaas oo aan ka baran marka aynu u eegno live waxay noqonayaan way halka waxaad arkaysaan inaad caado arkaysaan ma jeclahay halka waxa weeyaan power bankigi halkaas waa power bankigi waxa ku jira 3 battery hadhow toona marka kartoonka marka baan waan isticmaalay imika laakiin kartoonka marka koowaad unboxing ku sameeyso laba kugu jiri doona mid baa ka maqan kaasi wuxuu ku jira marka drone-ka power bankigi waa USB-C baa gelaya sidoo kale waxa gelaya USB-ga caadiga ah baa gelaya hadda ka taabsato waxaad arki doontaa inta ku charge gareysan mar walba ayuu ku sheegaya waxaanu ku build gareysan yahay gudaha kaga dhex jira yani artificial intelligence yar oo marka cable-ka fast charger aad geliso wuxuu halkaas oo saddexdaba sa wada maranaya scanka waxa uu helayaa ka ugu least-ga yani dabka ugu yar u baahan kaasoo buuxinaya ka kale ku xigsiinaya marka waa hadii aad geliso kaliya mid fast charger aad geliso laakiin
xarig aan fast ahayn yani imka telefoonadu waxay u kala baahan cables mid fast charger mid aan fast charger ahayn ka fast charger ka inaad geliso still uu shaqeyn doona intelligence kiisu laakiin saadana si yaro naqan budda ugu ridi doona marka waa inaad isticmaasho mid fast charger halka ka inoo dhig waxa leeyahay kan control-kii drone-ka weeyaan halka dambe sameecadii uu ku leeyahay texture-kiisu aad buu u fiican yahay halkan waa button-kii laga istaarayay halkan waxa weeyaan labadii aad gelinisay joystick-gaaga oo dhaqdhaqaaqayna dadalkaasaan marka halka wuxuu ku wataa bahladii yaryaraay ee joystick la qabanayay sida PlayStation-ka iyo PlayStation fahmayaan halkaas aad ka rakibaysaa marka aad buu fiican yahay sidoo kale isaga wax lagu charger gareeyaa bahalkan laftarkiisa waa la charger gareeyaa inaad arkaysan weeyaan waa la charger gareeyaa halka hoose laga geliyaa USB-C-ga telefoonada dambe jeeyada iyo waxyaabahaas ay leeyihiin weeyaan halka sare buttonadiisa waxa kamida buttonkaasina waxa weeyaan isaguna mid function gaar qabta labada button laba saayida iyo halkaas oo gimbal laga wado okay halka sare hadaynu nimaadno zero nice zero fiican oo diyaaradihii drone-kii hore yani mini 1-kii hore ka wanaagsanna halkaas uu ku leeyahay telefoonka laga gelinayo mini 1-kii halkaas laga gelin jiray telefoonka marka halkan aad ka rakibeysaa subhanallah halkaas ka rakibeysaa marka ila hadalkii bay ku dhigaysaa marka halkan waxa ku jira xarigadaas labada xarig baa ku jira mid waxa weeyaan ka imkaan oo aan isticmaalayo waa USB-C ama waa kuwan telefoonkayga caadiga ku isticmaali lahaa marka halkaas xariga ka soo saaraysaa halkaas uu marka hore ku rakiban yahay halkaas ka soo saaraysaa telefoonkaaga gelin doontaa telefoonkaaga si yaro nice leo fiican ayadoo ugu rakibi doontaa very shirkad uga fikirta halkan yani wax dhigaysatay customerka sababtoo mar kasta halkan aad eegi jirtay imka si yaro fiican dhabarkaaga kala baxaya qortaadu ay halka u eegaysaa moogta taas waa taas halkan xarigii lagu charger gareynayay labada aynu soo sheegnay weeyaan oo la socdo madaxa yari waxa weeyaan USB-C-ga caadiga lagu charger gareynayay waa yahay mana fast charging la socdo waxaas dhan baahaas ku jireen baahaas la socdaan si uu qallan ugu soo dhiibayo waa yahay aanada sare dan furno waxa kugu jira kiniino waxa kugu jira waxyaabaha soo dhan ba kugu jira xarkiyaha idin sheegay waxa ku jiraan kartoonkaas xarkiyaha idin sheegay kartoonkaas ku jiraan waa kuwii Samsung iyo kuwii yani Samsung yara hore mini USB-ga ahaa iyo iPhone kuba labadaba waa kuwaas anu USB-C kuma isticmaalay kartoonka harbi markaa ku dhex jiraan oo kuwaas halkan waxa weeyaan saddexdaasna aad shiliishka muddo ku yar badaad mudday waxa weeyaan saddexda yani beer ee propelleriska ku jira iyo saddexdaas hadii soo sheegay afarta propeller badan ama marwaxadood doolarada u baahatada ka saaran doona marka ka xamaadana ma ka jabaan kadibna kuwanaad ku replace garan doontaa وياهي halkan waxa ku jira screw driver ka yar baalka yar yani dismiss ka yar baa ku jira oo loogu talagalay propellers inaad ku furfurto ku xidho baloonada halkaasina waxa weeyaan midda joystick-ga beerka yar joystick-ga yani ku imkaan idin sheegay sida PlayStation gacmaha laga wadooday oo yar sayda weeyaan marka yani maxay u muhiim tahay inaad fly combo-ga soo iibsato fly combo-ga waxa fly more combo la yiraahdaa haddaad soo iibsato kulama soconayaan waxani bayteriyadan hal bayteri baa kula socon doona badanka xarkaha iyo hawlaha kula socon maayaan in yar ma kula waxay in yar noqon weeyaan marka fly more combo-ga hadii imka soo ahaan aad bayteriga isticmaasho bayteri ka dhaca kala gelinaysa propellers-kaas hadii ka xumaadaan oo kale markaaba wad bedeli kartaa kuwa kala gelinaysa bahalada yar hadii ka lumaan marka qaar kood baad soo qaadanayo la baxsanayo isla deegaanka ugu fadhiyo ka boodi kartaa ma ogtiin fariin iska wad geliiri marka kuwaas oo kala ku noqonaya life saver way haynu nimaan halkii ay sheekadu hadda bay fadhiday gunti aynu nimaano ma gabagabo laakiin tara waka waxaad ka filanaysaa ka soo baxda meesha wax weyn soo maada drone waka take it yani waxa weeyaan mid sandwich ay leegtay gabigeeduba this bad boy laakiin hadda ogtiin wuxuu qaban karayo ma hadasheen marka waxa weeyaan mini 2 ama DJI Mavic Mini 2 waatan in badan baan runtii ku shaqeynay muddadaas oo dhan ku shaqeynay waxyaabo fara badan oo aan islahayn qaban karaysan way qabatay hadda saaw eegto maba gaadhaba yani weightkeeda gibigeeduba ma wada gaadhaba hal pound half kg yani 250 gram ma gaadho xitaa waa 49 oo ultralight sida ka ku qoran kana ka culus ba waxa ka culus controllerkeeda weyn ayaa ka culus ba marka la dul dhigo marka controllerkan Mavic Air 2 ay iska gamid yihiin oo isaguna
sanadkan isaguna la soo baxay Mavic Air 2 waa same weeyaan sidoo kale bateriyada yani ku shaqeynaya droontan bateriyada ku shaqeynaya waxa kala droontan ku shaqeyn kara bateriyada Mini 1 oo midmadooba iyaguna laakiin Mini 2 ku shaqeyn kara maayo Mini 1 exactly wuxuu leeyahay propeller guard balka yare yani ku xiraya ama ku ilaalinaya propellerskaaga warwaxlahaaga aan si bad ka siin okay وكاس انت سو كليه باش قبيد ولا اكتبوها فيري لايت يعني imika inaan waxba sido telefonkayga xaqiiqatan ka culus telefonkayga saacada ka culus aad u fududahay halkaas oo halkii bateriga laga ridayay wadarkayso bateriga halka laga ridaa halkan waxa weeyaan gimbal kafarkaas ba ku jira oo gimbalku ku ilaalinaya gimbalka ayuu ku ilaalinaya wad ka furi doontaa oo ka waa very simple very light portable wax kasta way ku noqonaysaa aan shada ku celino وهي هذا دون كهذا درون كان مركب كوباد درون تروح يصبح سنة شيء نوفمبر شنتي دي بنش علينا صباح ذي نجيب كده بقى يعني ميزان كده وهويان 249 جرام وحيكون عاون سواء أي أوفي عنتها هي fortunately مركب ويت كيدو نتوي هي ويت كيدو إنه وضمن القار عتك كعين كرتو يعني وضمن القار هدي انتها 1 باوند وشيء وسوق قدام ما درون كيسوق قدام ليسن ayaa brother doona liisan kaasna sida caadiga abad meel u tagaysa oo toot shaabinaysa diyaar subax wal goornaa kan samee kadibna wad on garaynaysa license-kaaga ku duulin karayso droonka marka fortunately shirkadda halkaas ka fikirtay meesha doonta marka aad ku duulin kartaa wax liisan lagaga baahnaa waana legal taalka ay dhig qiimadeedu waxa weeyaan marka aan fly combo ahayn waxa weeyaan 499 plus combo-ga markuu yahay waxa weeyaan 599 almost 600 laakiin anigu halkan maadaama joogo Soomaaliya lagiisa ma taalo waan dalbaday markii la ii keenay waxay u gaadhay 700 marka la isku geeyo transportation-ka taxes-ka waxyaabahaas 700 bay ku timid okay bal hadaba waa features-ka ay leedahay muxuu yahay maxay specific ka dhigaya maxaa qurxinaya maxay kaga duwan tahay Mini 1 aan isleegno haddii aan eegno saan idin sheegay marka koowaad waxyaabaha ku fiican tahay waxa weeyaan lightweight weeyaan 1 pound ma gaadho half a pound xitaa ma gaadho taa marka laga yimaado aynu imaadno bal yani kamaradu waxay qaadaysaa ama image performance-geeda haddii noqoto video haddii noqoto image aynu isleegno shayga koowaad ee aad iyo aad muhiimka u ah ee ay upgrade shirkaddu ku samaysay marka Mini 1 u eegaysay waxa weeyaan video-ga marka laga hadlayo Mini 2 wuxuu duubayaa 4K halka Mini 1 ka duubisay 2.5K amazing يعني فيديو دوبس هو حواليا almost مid u dhigma fiidiyoda ay doobaan kuwa kale cinema dronesku ay doobaan droneska kala duwan ee kale ee waaweeni ee sensorkoodu fiican yahay inta ay fiidiyoga doobaan quality-ga doobs aduna God bless us waxay leedahay sidoo kale optical zoom waxa weeyaan marka duulayso ee aad leedahay in ka tusaale ahaan meel uu tabi ka socdo kale ama biyo ka socdaan qulqulayaan waxyaabo noocaas meel saxmada waxyaabahaas oo markaas leedahay si detail u daawo laakiin si aadan doonaynin drone-kaagu ay hoos u gasho ayaad zoom siinaysaa marka waa 4 times spin odhanana ayaad zoom leedahay ama aad awood leedahay inaad 4 jeer soo dhaweyso marka aad 4K ka joogto ee Mini 2 halka ay Mini 1 ku aanay kala hayn ama aanay support gareyn in zoom samayso ama soo dhaweyso shayga haddii aanu eegno image quality-ga labadoodu waxa weeyaan 12 megapixel laakiin se Mini 2 wuxuu qaadayaa JPEG plus RAW transmission-ka uu qaaday ay ku isticmaalayso Mini 2 waxa weeyaan OcuSync baa la dhahdaa 2.0 waxa weeyaan yani nidaam cusub oo radio kala oo aanu ka lumeynin hadii maximum distance-ka ugu dambaysa xitaa ay tagto kama lumiyo connection-ka ka dhaxeeya adiga iyo kamaradu halka ay ka isticmaalisay Mini 1 halku ka isticmaalay kamarada droontaasi Wi-Fi imsaad marin karaysa inay tagayso waxay maraysaa 10 kilomitir ay yani distance-keedu gaari karay halkii tii hore ka gaadhisay 4 kilomitir so waa big difference nidaamka OcuSync-kana isticmaalaysa waa radio halkii tii kale Wi-Fi ka isticmaalaysa Mini 1 marka kama lumayo 10 kilomitir martay kama lumayo transmission-ku marka hada loo baahan yahay laakiin aadan ku fogaanin inaad 10 kilomitir ka dhinto 10 kilomitir laan magaalada kuma xireen sida kan soo duubisay filan max flight speed-keedu ugu dambeeya Mini 2 waxa weeyaan 16 per second kiiba yani
sport mode laakiin markay joogto weeyaan 16 second halkii second waxay duubisa waxay saa u boodaysaa 16 talaabo yani saa u boodaysaa sport mode markii halka ay mini 1 kuna ay 13 talaabo ka boodisay second-kiiba haddii maadno winner systemku waxa weeyaan yani awoodda ay iskaga ilaalinayso in ay sida imika aad arkaysaan bahashu waa light dabaysha xooga faraha badan lama adkaysato laakiin sa levelkii ku kala weeyeen ay u adkaysan karayaan marka levelka mini 2 waxa weeyaan level 5 halka uu mini 1 kuna uu ka yahay level 4 marka win resistance kana ku kala fiican yihiin hadda saa u kiciso mini 2 mini 1 waxa laga yaabaa in xoog dhaqaaqdo laakiin tan kale way dhaqaaqi doontaa laakiin dhaqaaqii uu ka yeeriyo mar walba oo way ka resistant adag tahay marka loo eego mini 1 waxyaabaha intelligence functions ay leedahay waxa kamid ah marka sawirka la qaadayo mini 2 waxa uu leeyahay boomerang waxa uu leeyahay drone waxa uu leeyahay quick shots waxa uu leeyahay rocky yani afarta shayba waxa weeyaan marka la joogo sawirka sida uu qaadayso intelligence ay u gaara oo loo soo sameeyo oo sawirka ay u qaadayso mini 2 waxa uu leeyahay marka application ku dhex jirto inaad videogiisa si degdeg ah aad ugu kadgaraysan karto inta u baahatay at the same time aad ku dhiggaraysan karto sidoo kale 2 seconds ay ku qaadato inaad samaysato inaad download garaysato halka aanay intaas aanay midna ka lahayn mini 1 sawirada qaadaysa waxa kamid ah panorama mini 2 panorama laba u qaadaysa mar waxay u qaadaysaa 180 degree oo yani waxay ku tusaa super wide bay ku tusaa sawir aad iyo aad u wide marna waxay ku tusaa marka doorato sphere circle sawirada intii iskugu urursan 9 sawir ay 20 sawir ka soo saaraysa oo sa iskugu circle hadhutan marka ku dhex jirto application-ka taa u dhex gashana waxay ku tusaa site soo gasho sida globe oo kale ay arkaysaa circle-ladii kala duwan oo dhan halkan ka tusi kari laakiin qofku isoo tijaabin baari karaya haddaba maxaan ku recommend gareynayaa qof kasta oo imka doonaya drone uu bilaabo waxaan ku leeyahay laba mid haddii adigu aad tahay qof imka tusaalahan mini 1 kiyo kala haystay oo doonaya inuu drone kan labaad iibsado big difference baad dareemi doontaa marka aad isticmaasho mini 2 haddii aad tahay qof ku cusub drone-ka in la kaxeeyo ama base aircraft photography ama videography aad ku cusub tahay imka oo doonaysa halkaad ka bilaabayso great choice baad haysataa imka oo aad ku bilaabi karto fiilkaas waxa ku wanaagsan inaad qaadato drone-kana oo iibsato mini 2 videogan sida oo kale muu sponsor garaynin DJI iyo shirkadaas sidoo kale dhinacna igama sponsor garaynin kaliya my thoughts-kayga xaqiiqada ah in isticmaalay iyo saan arko ma idin sheegaya marka xaaji waxaan ku leeyahay waad isticmaali kartaa oo waa ku muhiim haddaad ku cusub tahay drone photography iyo videography inaad mini 2 kan isticmaasho waa great choice haddii aad doonayso inaad upgrade ku samayso taadii hore oo sideedahay ka yara dhacayso kale maxaan sameeyaa aad iyo aad muhiim kugu tahay inaad upgrade samaysaa 4K bay duubeysaa sida caadiga aan idiin soo sheegay sidoo kale lenseska ku jira waxa weeyaan 24mm waa wide sensorkeeduna waxa weeyaan 2.3 CMOS marka muhiim weeyaan aad iyo aad quality-keedu fiican yahay mostly yani marka video aad eegto iyada lagu duubay ku kala marka lagu duubay la isbarbar dhigo drone win marka la garan doonto ishi yani waxaan fahamsan mooyaane eed kala fahmi karmayso marka great choice baan leeyahay video inta inooga ekaado aad baad maadsan tahay fadlan sida caadiga ahayd kaamaan codsanin laakiin adigu salix ilqaamo haddana ku soo biiran channel kama aragtay oo maanta isku keen horeyso magacaygu waa Shakuub Rashiid waxaan ka hadlaa filmmaking-ka iyo tutorials iyo editing la khuseeyo filmmaking-ka overall marka haddaad ku cusub tahay waxaana aad xiisayso dee fadlan intaad hoosta aad tagto halkeena casmad aragta subscribe ku qorantay dhac ka sii waxaad doontaa notification balkana taabo si aynu fiidiyoda kasta oo week kasta soo geliyo tutorials waxyaabaha soo geliya filmmaking-ka khuseeya markaas aan ku dhaafin xaji waana taabataa gambaleelka aad soo taabataa notification bellka sidoo kale fiidiyoda ku cajabiyo mowduucan aad iyo helpful oo kuugu noqday fadlan like saar comment-igana igula wadaag aaraadaada iyo afkaartaada iyo se waxa tahay mid doonaya upgrades gareeyo waxa tahay qof ay ku cusub tahay marka drone-ku oo doonaya inuu ku soo biiro oo rabi maanta halku ka bilaabo aad baad mahadsan tahay marka fiidiyogan inta inoogu ekaado tan iyo tan ku gudbi doona fiidiyoga kale waa Shakuub Rashiid leh peace